lacagtu ma keentaa farxad mise ma keento ma su'aal kale haddaan ku weydiiyo adigu nolosha miyaad raaxaysataa mise waad faraxsan tahay waayo labada tan inta badan laba kala yaqaano laakiin farq weyn baa u dhaxeeya dadka qaar way raaxaystaan laakiin farxad ma haystaan laakiin dadka qaar farxad ayay haystaan waxaan leenahay shaygu hadduu ku meel gaar yahay uusan joogto ahayn waa raaxo meesha shaygu hadduu yahay shay waqti dheer aad haysato ama shay permanent oo joogto u yahayna aan oran karno shaygaasi waad ku faraxsan tahay ama farxad baad haysataa tusaale raaxo hurdaa ku qabatay waad seexatay in yar baad suruday waad ka kacday waa raaxo cuntaad cuntay cuntada intaad cunayso waad ku raaxaysanaysaa waa raaxo say for example halkan waxaa ii yaala shaah soo waxaan leenahay koob shaahan ku shubay soo halka kan waa haaf bigaysa ama shaah bigaysa waa shaah aad u macaan waa kii saddexaad baan iminka maraya aad buu u macaan yahay waan ku raaxaysanayaa waa raaxo gaari baad gadatay gaariga kan iyaamaad ku raaxaysatay maalinta dambe wuu jabay ama wuu isbedelay ama rafaad kalaa ka dambeeya waa raaxo shay kasta oo aad haysato nolosha aan joogto ahayn waxa la yidhahdaa raaxo waad ku raaxaysataa laakiin shaygu hadduu yahay shay joogto ah hadduu yahay waxa weeyaan waxaan oran karnaa waa farxad tusaale awlaad iyo caruur wanaagsan baa ilaahay ku siiyey joogto maaha ama adaa ka dhiman ama way ku dhiman laakiin aan dhahno waqti dheer bay joogayaan waad faraxsan tahay xaas wanaagsan oo markasta ku raali gelinaysa oo ilaahay ka cabsanaysa oo maxaan ku rahdaayay ku farxad gelinaysa haysataa waqti dheer ama nin sidaas oo kale wanaagsan waa farxad baad haysataa okay dad wanaagsan baa kula dhashay walaalo wanaagsan baad haysataa waa farxad baad haysataa shay baad xagga ilaahay ula baxday sadaqaad la baxday sadaqadan waxaad ogtahay adduunyada inay ku anfacayso aakhirana kaaga horeyso tusaale yar baan ku siinaya kasoo qaad $20 baad haysataa maanta $20 $10 adaa ku qadeeyey $10 waxaad siisay qof miskiina oo u baahan baad siisay ama ha ku qadeeyo ama wax kale kaba soo qaad isna inuu ku qadeeyey adiga $10 waa raaxo in yar baad ku raaxaysatay way dhamaatay biri waxba kama hayso cunto kale u baahan tahay cuntada $10 ashile ku qadeysay maanta ma u baahan tahay haddana ma ka haysa ma waxba kama haysid so waa raaxo taasi laakiin $10 ee aad siisay qofka kale mar kasta oo aad soo xasuusato adduunyada waad ku faraxsan tahay qofkii dhibaatada haysatay aad caawisay and then adduunyada intaasoo sanaha ka soo wareegto mar kasta aad soo xasuusato waad ku faraxsan tahay aakhirana waxaad ogtahay inay kaaga horeyso markaan dad muslimiina nahay inay kaaga horeyso oo waxa aakhirana ay janno gooyaan oo ay joogto tahay so imagine $20 baynu qayminay $10 waynu ku raaxaysanay $10 wuxuu noqday farxad joogto ah diinteenu waxay ay in badan boorisay shayga ugu muhiimsan ama guusha ugu muhiimsan la gaaro waa janno sabab nimcada iyo barwaaqada iyo tal waxa marka ka jira waa joogto jannadu hadday ahaan lahayd in yar oo ay dhamaanayso raaxay ahaan lahayd laakiin farxad ma aysan ahaateen lacagta markaad u timaado lacagta waxay ku xidhantay qaabkaad u isticmaasho murugo iyo dhib way ku siin kartaa waad ka dheefi kartaa raaxana waad ku raaxaysan kartaa farxadna waad ka heli kartaa saddexda stage waad ka heli kartaa markaad lacag haysato ama ha yaraato ama ha weynaato goormaad dhib iyo murugo iyo keed ka helaysaa waa markaad si khaldan u isticmaasho oo meel khaldan u isticmaasho stage ka labaad waxa weeye waxyaabaha mubaaxa intaad ku cuntay gaari baad ku gadatay guri baad ku gadatay waxyaabaha iska mubaaxa weeyaan ee iska bannaan waxa hadda lacagta u isticmaashay farxad ma aha taasi waa raaxo waad ku raaxaysanaysaa stage ka ugu dambeeya ee tusaalihii aan ku siiyey camal oo kale masaajid baad ku dhistay qof baad baahan baad siisay qarabadaad ka xiriirisay ee maxaan ku raahdaa dad baad wax ku bartay so meesha aad ku bixisay 20 sano kadib still waad ku faraxsan tahay laakiin gaarigaad haysa aad ku gadatay iminka adigu aad ku gadatay waad ku raaxaysatay in yar kadib ama dhib baa ka dambeeya ama waxba kama haysid
waxbaad ku cuntay ama waxbaad ku gadatay ama dhar baad ku gadatay dharkii ugu dhammaaday waxba kama haysid so lacagta saddex labood u isticmaali kartaa inay murugo iyo dhib kuu keento inaad raaxo ka hesho iyo inaad farxad ka hesho halkani waa Dirir Media ila soco fadlan ha ilaawin inaad soo booqato YouTube channelka Dirir Media oo ay ku jiraan muuqaalo fara badan oo nolosha dhalinyarada ku saabsan